wakiilka dalada dhalinyarada Somaliland ee Soonya u qaabilsan dalka Jarmalka Ambassador Jamac Gire ayaa si adag u cambaareeyay weerarkii ciidamada Djibouti ay ku soo qaadeen ciidanka badda Somaliland oo ku dhintay hal askari oo ka tirsan ciidamada Somaliland. Ambassador Jamac Gire ayaa sidoo kale xukuumadda Somaliland ku dhaliilay qaabkii loo aasay askarigii difaacayay dalkiisa oo ay aaseen dad shacab ah. Bismillahir Rahmanir Rahim wassalatu wassalamu ala Rasulillah. waxaan maanta halkan haddii alla badankeeda ka cambaareynaya amaan haddii alla badankeeda leeyahay baaq dheer oo cambaareyn uga soo jeedinaya haddii alla badankeeda leeyahay dawladda Djibouti oo weerar waxaasnimo ku soo qaaday ciidamada ilaalada xeebaha Somaliland markii dambana dafirtay waxaan leeyahay Somaliland ciyaar kuma iman Somaliland waxay ku qotontaa kumanba u godgalay dhiga geesiga ku qotontaa haddii alla badankeeda cid kasta Somaliland xuduudaheeda badda iyo dhulkaba soo gasha cawaaqib xumo weyn ay kala kulmi doonaan ama dawladda Djibouti ha noqoto ama qaar kale ha noqoto khaasan dawladda Djibouti waxaan leeyahay arrinka isaga hadii raali gelin ka bixin weydo cawaaqib xumo ay kala kulmi doontaa dawladda Somaliland cid amniga u qaabilsan wasaaradda arrimaha gudaha wasiir Waran Cadde iyagana haddii alla badankeeda leeyahay waan ku cambaareynaya waxaan leeyahay haddii siyaasiyiinta Somaliland muxaafid iyo mucaaradba ay dawladda Djibouti rahman yihiin dhalinyarada Somaliland uma rahmanaan doonto dawladda Djibouti waanu tilmaamaynaa waanu sheegaynaa ka gaban mayno fartaanu ku fiiqaynaa Djibouti dalka Somaliland dheel kuma iman geesiyaal baa godgalay annaga oo dhalinyarada reer Somaliland ba haddii alla badankeeda leeyahay ka hadlayno idin sheegayna runta cawaaqib xumo ayaa kala kulmi doonta haddii raali gelin ka bixin weydaan arrinka isaga ah haddii alla badankeeda raali gelin aad ka bixin weydaan taas baan leeyahay ta kale waxaan ku cambaareynaya haddii alla badankeeda leeyahay xukuumadda cid u qaabilsan haddii alla badankeeda leeyahay ilaalada xeebaha askariga halkaas ku geeriyooday in haddii alla badankeeda leeyahay aan si heer qarana aaskiisa looga qayb galin loona aasin ay dad shicib aaseen taana waxaan leeyahay waa ceeb idin dul taala baan leeyahay dadkii mas'uuliyaddan lahaa waa sidaan sheegay ka dhalinyar ahaan aad baan uga xunnahay cidna uga gaban mayno uga habran mayno haddii alla badankeeda leeyahay dhalinyarada Somaliland cidna u rahmanaan mayso Somaliland daris baan nahay waddankaygana waanu ku faanaynaa cid kastoo xuduudihiisa iyo baddiisa iyo dhulkiisa soo gasha ama Djibouti ha noqoto oo haddii alla badankeeda leeyahay mararka qaar dawladda caalamka isweydiiyaan halkay maabka kaga taalo ya maabka adduunka halkay kaga jirto ay dawladda caalamka qaar isweydiiyaan marka waxaan leenahay Somaliland dandaansiga aad xuduudaheeda badda ku soo gasheen cawaaqib xumo ayaa kala kulmi doonta haddii ay jawaab degdeg oo raali gelin ka bixin weydaan shacabka reer Somaliland waxaan leeyahay gacmaha la isqabsado cid kasto ama ciidanka qaranka ha noqoto ama ciidanka ilaalada xeebaha ha noqoto cid kasto Somaliland soo hujunta ama soo weerarta haddii alla badankeeda leeyahay si wada jira aynu dalkeena u difaaci doonaa aad baan u mahadsantihiin saxaafadda madaxa bannaan ee sida sharafta leh waraysigan iga qabatay intaas baan doonayay maanta inaan soo gudbiyo waanad mahadsantihiin Somaliland tisqaatay tallaabsatay oo dhaqaaqtay jidkii la rabay ku toosto waxaa toobiya xaqaaday Somaliland tisqaatay tallaabsatay oo dhaqaaqtay jidkii la rabay ku toosto waxaa toobiya xaqaaday